يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii qiimaha badnayd ee fursadda ilaahay uu nasiye ahayd, fadligeeda iyo wixii dheeraad ay leedahay bishaasi dhowr iyo 10 arrimood oo islaamku uu ku qiimeeyay baynu soo aragnay. dib ugu noqon mayna, laakiin fadligeedii iyo faa'iidadeedii iyo wixii ay la gaar ahayd ee 12 bilood kale kaga duwanayd soo aragnay. maxayna la gudban weeyay? ولكل مقام مقال. هوس ولبا هذا البولي هذول أول تشوجا بهذا الكوها بومي وتاجنا هاي فرصة دي عمرك فرصة وحلوك للإيريانا الدتك عمرك وذوك كلا بطانا والسيد الدتك عمرك يوفى إذا استانية أيامها صامرة قف عمرك سيري هينا ومدير الدون كتشوجا إن أعمال بدن بودجاه oo akoonka ilaahay wax badan buu ku shubaa, akoonka aakhiro uu dhiganayo. qof wax badan jirayna waa ka maraya, waa ka casiya. marka akoonkeena khayr kale intee oo dhinac baynu wax kaga soo shubaynaa. midda oo horeysa waxa weeye as-siyaamu fi hada ash-shahr. cibaadada aynu u taaganahay bishan kow waxa ka ah faral ah soomka. haddaad odhan lahayd oo baynu soomanahay, dee dadku mii wada soomaya, dad aan waaga soomkuba u baryin baaba jiraba. waa kuwa qaadka isku yariyeen ee arkaysa meelaha dad xabadu ka dhacaysa, marqaan baa la il daran yahay oo dadkii habeen iyo maalinba waa la qamxaya, waa la qaylaya. dad muruq iyo kuusan oo rag iyo dumar balo xooga ayaan uba jeedinba bisha ramadaan aanay u bilaninba, waana ubadkeeni, asxaabteeni, ehelkeeni. idan markaa cidda baraarujin lahayd ee wuxuu sheegi lahayd inay soo barbar taagaan u diyaar garoobi lahayd waa inaga. kawa inaad cidaad kelmad ku leedahay ama aad ka mas'uul tahay marka aan cudurdaar lahayn, waa inaad kula xisaabtantaa soomka oo aad baraarujisaa oo aad ku daba gashaa. xil baa kaa saaran. nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam qiimaha cibaadadani ay leedahay ayuu aad inoogu baraarujiya. wuxuu uhi kullu camal ibni aadama lahu الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قفكو عملك أو سميودا استقالة طبعا شربانا إلى هاي أولا بلاوا، لكن إلى هاي حديث القدس وحو نبي وشق عليه الصلاة والسلام صوم كونوا قارية، صوم كواقون إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به بقى إلى هاي ولا صوم أنا له أنا كأبا المرينة يقف أنا له عبادة دوران إلى هاي استقالة أو إنك استقالة له يا وحي نشاق نبا si gaaraho loo calaamadiyo. waxay sheegaysaa cibaadadani inay wax gaar leedahay. waxa uu ku sii sababeeyay marka xadiidku yatruku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. qofku wuxuu iska daynayaa shahwadiisa iyo cunadiisa iyo cabidiisa. ma hiya shahwa? shahwadu waa maxay? waa rabitaanka qofka. rabitaanada xaaraanta ah way kala duduwayn. waa rabitaanka hamada ee xaaskii uu iska daayay, rabitaanka aragga wixii xumaaya daawan lahaa buu iska daayay, rabitaanka dhagaha wixii xumaaya uu dhagaysan lahaa buu iska daayay, iyo rabitaanka hadalka wixii xumaaya carabkiisa iyo afkiisuu doonayay. kullu haadii min ashahawaat, shahawaadka ka mid tahay rabitaanada. aniga daraadday buu daayay baa ilaahay u leeyahay subxaanahu wa tacaala. wuxuu markaa ilaahay ku abaalmariyey inuu qofkaas udgoonaado oo uu macaanaado. macaanku waxa sheegaya sacaadada. waa labadaa farxadood uu sheegayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu afurayo markuu ilaahay la kulmo. mar haddaad qof saciida taho sacaado la waad macaanti
udgoonkana waa kaa nabigu sheegay wala khaluufu fami saa'imi adyabu cinda allahi min riixi lmisk idan cibaadada iyada waxa u horeeya inuu taagannahay waxa weeye inaynu soomka akownka khayrka leh faralkaa kusoo shubno waxaa kaloo aynu ka helaynaa wax alla wixii aynu la rooraynay inuu ilaahay bishan inaga reebo ee dembihaa man saama ramadaana iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembi qofka bishan ramadaan sooma isagoo rumaysan wuxuu ilaahay u ballan qaaday ilaahayna abaal kaga doonaya dembiga horaa laga dhaafaa dembiga horena waa wixii 11 bilood aynu soo booshaaqaynay aynu soo samaynaynay ilaahay baa inaga dhaafaya noocyadii kala duwanaa u lahaa idan waxa halkaa aynu ka arkayna maalinka aynu soomanahay yuu la mid noqonin maalmaheenii kale la xajaclo gaar ah inaga hayso waxaynu akoonka khayr kale dhinac kale kaga soo shubaynaa tawaabkii aynu ilaahay ku weydiisanaynay sarajooggeena habeenkii alqiyaam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dembi dembi dhaaf baa dhinacaana ka soo arooro ka yimi markaad habeenkii isu taagto cibaado taraawiixdii witrigii salaatuleylkii cibaadada aynu isu taagaynaynu wakhtiga habeenkii ku camiraynana iyadana dhinacaasaynu kaga soo shubaynaa waa arrinta labaad weeye ilaahayna awliyadiisa saasuu ku ammaanay awliyadii jannada galay ayuu ka warbixiyey waxay jannada ku heleen wacibaadu الraxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وفرسو عالم كاسيكو عسومين دنبو عباد الرحمن محايكو هلان جنداس ما يهين دد كبراء ما يهين دد بلا معنى كنول ما يهين دد اسكا عياري وهبين كيبا إله العبادة يسنجرين هبين كي واقو وحو بريجر إياقو عبادة وتاقب بولاي waxaasay soo sahay qaateenay halkan ku heleen asxaabiga la yidhaa saa'ib ibnu yaziid radia allahu canhu waxa uu leeyahay kaana alqaari'u yaqra'u bilmi'iin yani almi'aat min alaayaat wakunaa nactamidu cala alcushiyi min tuuli alqiyaam wamaa kaanuu yansarifuuna ilaa cinda alfajr saxaabadii iyo salafkii iyo saalixiintii markuu warramaya waxa uu leeyahay waxa lagu cibaadeysan jiray boqolaal aayadood aayadaha la akhri jiray waxa ahaan boqolaal marka la daalana usha la cuskan jiray kolku qofku daalo waagu markuu soo dhawaado suxuurta la gaadhana waa laga bixi jiray salaada ciyaar ma ahayn wax la daawanaya ma ahayn soo jeed ma ahayn qaylaad ma ahayn laakiin ilaahay baa la hortaagan yahay subxaanahu wa tacaala aayadihiisana waa la akhriyaya anteenada addoomuhuna isagay ku xidhan tahay oo si toosa ula faqayaan marka arrintaasina aad iyo aad bay muhiim u tahay taraawiixda qofkii haleela masjidku ku tukanaya salaatuleylkii iyo cibaadadii habeenkiina qofku caa'iladiisa iyo qoyskiisa intuu kiciyo ayaa ay ku tukan doonaan qur-aanka kariimka ah wixii ay ka yaqaanaan iyo salaada intay karaan iyadoo midhkii witriga loo dambaysiinayo qofkii xataa aan dusha ka hayn kitaabka uu ka akhri karaa dhinac kale waxaynu akoonka kaga soo shubaynaa sadaqada iyo gacan furnaanta inagoo kaga dayanayna qaa'idkeennii weynaa nabiga calayhi salaatu wassalaam kaana rasuulu llaahi ajwada annaasi bilkhayr wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil dadka wuu ugu deeq badnaa bay leeyihin asxaab rasuulku ugu deeq badnaa weliba marka malaga caalamka kore ka yimi uu nabiga la kulmayana gacantiisu way sii furnaan jirtay deeqduna way sii kala daran tahay waxaa kow ka ah idcaamu dacaam inaan laynagu dhex gaajoonin oo dhaqasha horta ha joogtee dhuuniga waa inaan la waayay oo dadkii soomanaa iyo dadka fuqarada ah waa inay cunadu noqotaa mid iska badan oo meel walba laga heli karo ilaahay baa sidaa ku ammaanay awliyadii jannada gala waxa uu wayudcimuuna dacaama calaa xubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira markay ifkii joogeen waxa la cunaabay bixin jireen iyo quudka iyagoo weliba jecel miskiin bay siinayaanoo agoon bay siinayaanoo qofkii maxbuuska ahaa ee gaalada laga soo qabtay gaajo kumay dili jirin isagana dhuunigay siin jireen innamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura waxay odhan jireen
waxaanu idin siinayno waxba idinkagama doonayno ilaahay wejigiisa iyo daraaddii baanu ula jeednaa macnaa deeqda waxaa u wehelinaysay daacadnimo dad daacada bay ahaayeen innaa nakhaafu min rabbinaa yowman cabuusan qamtariira aakhirana waa ka cabsanaynaa maalinkaa qiyaamahoo la sheegay inuu adag yahay kaana inaanu ka nabadgalno kulaylkiisa iyo dhibkiisaanu doonaynaa ilaahayna markaa waxay ka baqayeenna wuu ka badbaadiyey waxay ku yidi diilanayeenna wuu siiyey fawaqaahum allahu shara dalika alyowmi walaqaahum nadratan wa suruura farxad iyo iftiin baa ilaahay uu ku abaalmariyey salafuna saalix waxay ku dadaali jireen bisha in wax la wada cuno oo aan la kala cunin waa siday nagu yaro badan geyr weynuun in lasoo xidho ood masaakiintuna meelaha warwareegaan bannaankaa cunada loo soo wada saari jirayoo afka afurkaa la wada saari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ayu lislaami khayr camalada islaamka ee noo yaaleenu qabanayna maxaa u wanaagsan maxaa u khayr badan markaa rasuulku waxau ihi tudcimu acaam wa tuqri'u asalaama calaa man carafta waman lam tacrif dadkood dacaamka siiso dhuuniga iyo wixii la cunayay iyo wixii la cabayay cunadii oo dadka siiso iyo adigoo aan u kala axanin dadka qofkaad garanaysa iyo ka kaleba ciddii meel kaaga soo baxda salaama imaamu shaafici wuxuu leeyahy raximahu llah uxibu lirajuli ziyaadata biljuudi fi shahri ramadaana ibtidaan birasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walixaajati annaasi fiihi ilaa masaalixihim walitashaaquli kaiiri minhum fiihi bilcibaadati can makaasibih saddex arrimood daraaddood in deeqda la bixiyo bisha ramadaan baan dadka aada ula danaynayaan u dardaarmayaa buu leeyahy imaamkaa weyne saaxibulmadhab maxamed ibnu idriis shaafici in deeqda la badayo inagoo kaga dayanayna horta rasuulka baahiduna way iska badan tahayoo maalmaha dadka baahidu way ku badantay qaarkoodna shaqooyinkii baa ka xidhmay walaa siyamaa fi hadihi alayaam ayaamahana waynu arkaynaa busaaradiiba badatay markii baqihii cudurkaasi yimi marka idcaamu dacaam arrintaasi aad bay muhiim u tahay dadka ilaahay wax siiya waxaya raashinka qaydhiin inay qaybiyaan ku qoyanna qaybiyaan weliba hilibka inaa u fiirsateen mooyaane fuqarada qayb baan hilibba helin baryahan wasladii halkay maraysa inta sacuudiya arabiya ay ka maraysaabay halkeenana ka maraysa xoolii waynu haysanaa laakiin waa qaali dad badan baa markaa fuqaradii hilibkiiba goyn laha maxay ku yeelaysaa inaad awr $400 soo iibiso ood 100 wasladood ka dhigto ood 100 qoysiiso waxaad kari karayso wey ama laba qof ay isku kaashataan dabeetana dadka fuqarada iyo jaarka ah marka wiig la joogo bishii 2 jeer xoolo loo qalo hilib la siiyo arrinta aad baynu adkaynaynaa dadka maadadii borotiinka qaar baan hayninba nafaqa darro u dhimanaya waxaa iyaduna aada u sii muhiima taftiiru saa'imiin dadka sooman in la afuriyo dadka sooman in la afuriyo qodobkii saddexaad ee akownka khayrka lagu soo shubayay ee lagu biirinaya lagu badinayay baynu wadnaa fuqaradii waxbaa la siinayaa dadkii baahnaa saa aynu horeba usoo xusnay masaakiintii agoomihii waxaa si gaara iyagana loo sii eeganayaa qofka sooman qofkii soomanaa isaga siyaado wax dheeraadaa laga helayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa waxa uu ku uhi man fadara saa'iman kaana lahu midlu ajri gayra annahu laa yunqasu min ajri assaa'imi shay qofka qof sooman afuriya qof sooman ayuu la raadsado afuriyey maaha isagun inuu raadsanayo wax afuriya dadka qaarkood oo innaga laga yaabo inay waxhaystaan baa waxay raadsanayaan cid afurisa adigu ku dadaala inaad koob sharaaba 2 xabo oo timira saambuusiya wixii lagu afuri jiray dadku caado u lahaayeen dadku waxa ay jecel yihiin inaad kaga qayb qaadato ka gaarsiisay inaad afuriso taa ku dadaal mar haddii adigiiba helaysay inaad cid wax siiso qofka qof sooman afuriya wuxuu helayaa kaa soomani ajrigu hela in la eg buu ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahayna kama naaqusayo kama yaraynayo ilaahay deeqdiisu way ballaarantao waa kariim kan sooman intuu siiye in la eg buu adigana ku siinaya marka maalin walba waxaad ku xisaabtantaa intee qof baa kuu soomay macnaha soomkoodii in la eg adiguna aada helaysa oo aada furisaa arrintaasina aad bay muhiim u tahay waa idcaamu dacaamkii qayb ka mid ah dadka wax la siinayo ma aha inay yihiin fuqaro oo qura ma aha inay yihiin dad sooman oo qura dadka asxaabta iyo ehelka iyagana la casuumi karaa oo karamka iyo deeqdu waxay ka mid tahay in hadiyadaha la isa siiyo la iscasuumo iyaduna fadli bay sii leedahay bishan ilaan maxabada iyo jacaylkaa sii kordhaya
waxa afraado iyaduna aynu akoonka dhinaca khayrka ka soo shubayna alijtihaadu fi qiraa'ati alqur'aani alkariim ilaahay kalaamkiisa inaynu ku noolaano aynu la noolaano oo aynu ilaahay la faqno aynu dhegaysano subxaana wa tacaala marka bishan aad bay ayuu nebigu u akhri jiray qur'aanka waliba malakul jibriil baa u iman jiray oo malagii mucallimka ahaa ilaahay ugu soo dhiibay baa la akhri jiray yudaaris macahu oo uu la subcinaya asxaabtuna ridwaanullaahi calayhim qur-aan akhriskooda wuu ka sii badnaa intii hore oo waxa ay tilmaamaan dadkii la saaxiib ahaa cuhmaan ibnu cafaan inuu hal mar dhammayn jiray qur-aanka kariimka ah maalin walba haddii adiga kugu adagtay bisha inaad mar dhammayso adigoo qur-aankii akhriyi karoo yaqaana maalin walba hal mar buu dhammayn jiray ha qariibsaninoo ha odhanin siday u suuroobaysa qaarkood kaana bacdu salaf yakhtimu fii qiyaami ramadaana fii kulli maratin qaarna habeenkiiba waxay dhammayn jireen ramadaantiiba mar dhammayn jireen qayb kale usbuuci qayb kale 10kii cisho marka haddii aad tidhaahdo sawkii nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qur-aanka muu fahmin 3 cisho ka yar qofka akhriya sidee bay noqonaysaa culimadu waxay kaga jawaabeen sida uu leeyahay caalimka ibnu rajab alxambali waa markuu qofku joogto ka dhigayo laakiin markuu joogo waqti fadli badan sida ramadaan oo kale ama baytullaahi alxaraamka oo kale wuu kordhinayaa taasina way ka sugantay saxaabada wax la yaab lana maaha qofku markuu maahir ku yahay qur-aanka ee qur-aanku sida faatixada adiga uu kugu degan isaga ugu dego wuxuu kari karaa 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo inuu ku akhriyo juska adigu aad saacad la rafanayso marka 30kii jus ku dhufato 20 daqiiqo 9 saacadood iyo xoogaa weeye dee qofku 24 saacadood buu haysta hadduu 9 qur-aankii akhriyo 3 jeer oo min 3 saacadooda 30kii uu dhameeyay ka dhiganta qofkii ilaahay u sakhiray subxaanahu wa tacaala mutamakinka ah ee qur-aanka si adag u hayay taasina wuxuuna sheegaysaa inay dee shaqooyinkii soo yaraynayeenoo inay khayrkan ka fara qabsadaan ayaamahan qaaliga ah bay isku dayi jireen salafuna saalix waxaa see lagu xisaabtamayaa cibaadadani mar hadday sunno tahay qofba waa intuu kari karo cibaadooyinka dhinaca kale aynu kaga soo shubayna waxaa ka mid ah aljuluusu fi lmasjidi xataa tadluca ashamsu inuu qofku masjidka iska fadhiyo ilaa intay qoraxdu soo baxayso qiimo weyn bay leedahay waa ramadaan iyo kayrkiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam halka uu ku tukado salaada subax buu fadhiyay ilaa qoraxdu soo baxdo sidaasaanu dadka faray waxaanu tilmaamay inay u dhiganto xaj iyo cumro dhammaystiran salaadii subax waa tukatay wardigii baad akhriday qur-aankii baad akhriday wax badanimo uma dhexeeyaba saacad iyo rubuc baa u dhexeeya adaanka subaxa iyo qoraxdu intay soo baxayso dee marka laga jaro intii subaxa la sugay ee laga jaro intii salaada subax la tukanayay wax yar baaba soo hadhayaba 30 daqiiqe soo hadhay buu qofku jiskii akhriyaya wardigiina uu akhriyaya qoraxdiiba waxay gaadhayba halkii uu tukan lahaa qofku udxiyada waqtigood udxiyada uu tukan lahaa buu gaadhay udxiyadii buu markaa tukaday halkaas uu ku xajay oo uu ku cumraystay isagoo isla meeshiisii fadhiya haddaad heli karaysa markaa masjidaan iska cidlo ah oo aad ku khalaawayso waad samayn kartaa cibaadada waqtigan la yidhi ururkaa yar dhib badanaya ictikaafkiibaa isaguna jiro qofka hela meel uu ku ictikaafo ictikaafkiina waa sunne cumradii bisha ramadaan la cumraysanayay marka ama waqtiga ay arrimahani suuro galaan weeye ay sahlanaadaan marka qofka intaasoo arrimood wada bishan gudaheeda iyo qofka intaaba aan u jeedin isku islaamna ah isku abtirsiimana ah isku deegaanna ah sidee aakhira u tartamaya sidee janno ugu soo wada xaadiraya ilaahay fadligiisu uu ballaaran yahay subxaanahu wa tacaala laakiin waxaynu arkaynaa la kala dheeree orodse maaha in la kala dheeraynayo adduunkiiba lagu kala tegay oo qofna halkan uu kaadh qaaliya ka sii qaadanaya qofna isagoo iska gacmacad buu halkaa tegaya marka waxaynu baraarujinaynaa waxa aynu bishan ku qaadanayna aynu ku camiraynaa waa cibaadooyinka qiimaha badan ee waqtigoo la lumiya ma aha iyo adiga oo karaahiyeysta bishan iyo adiga oo gaajada ee ay ku damaqda maaha waxalla waxaasoo dhan waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan fawaa'idkii ruuxiga ahaa iyo cibaadadan sidii ay u kobcin lahayd qofka loo badsan lahaa faa'iidooyinka caafimaad ee soomku uu leeyahay marar badan baynu ka hadalay laakiin ta inoo muhiimkahay waxa weeye diinteenna sidaynu u korinaynaa inuu u kobcinaynaa allah ina waafajiyo
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المسلمين في من خافك واتقاك وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون والسيء الأسقام. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.